dagaalkan oo u dhaxeeya ciidamada Puntland iyo kuwa Somaliland ayaa saaka galinkii hore ka qarxay degmada Tukaraq ee gobolka Sool kaasi oo Somaliland u suurta gashay inay gudaha u galaan degmada Tukaraq oo halkaas uu yaalay kastama ay cashuuraha ku qaadaan dawladda Puntland lama oga khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkaasi maadaama ay wali soo fadhiyaan labada ciidan walow dhawaqa rasaasta laga maqlayo degmada Tukaraq yaageeda gudoomiyaha gobolka Sool ee ugu magacaaban Puntland oo aan khadka taleefanka kula xiriiray wuxuu ii sheegay inay gubeen gaadiid dagaal oo ay leeyihiin ciidamada Somaliland sidoo kalena ciidamadoodu ay ku sugan yihiin deegaanka Godqaboobe oo Tukaraq u jira 15 kiiloomitir wuxuuna wareysiga gudoomiyuhu u dhacay sida tan kan waxa weeye waa ka faa'iideysan doonaa nimankan dardarada ku soo doonteen meeshan waa qabsan doonaa laascaanood waxaad noo sheegtay dhankiina wax khasaara ma jiraan oo iyaga qudhooda waxa sheegtay in khasaare soo gaarsiin oo laba gaari ay ka gubteen labada gaarina gubteen maxaad noo xaqiijinaysaa labada gaari waxa sheegay inta badan dadkii ay baaqeen magaalooyinka dhaafeen la sheegay inay laba gaari ka gubteen dhaawac fara badan la gudbiyay oo dhaawac fara badan laga soo gaaray magaalooyinka sheegay oo haweeney dawlad soo kala qabsada dadka marka ciidankiinu meesha dagaalku ka dhacay rasmiga ay labada ciidan ay isaga hor yimaadeen waa xagee waa Tukaraq waa soo meesha ciidanka inta badan deganaayo ciidanka Puntland meesha deganaayo waan gartay marka hadda iyaga gacanta ku haya degmada Tukaraq oo halkaas fadhiisin yahay oo kastamad kula haydeen Tukaraq yeeda iyo hadda haweeney ay gacanta kula hayaan oo waxay joogaan joogaan oo iyaguna laakiin magaalada gudaheeda waxa sheegeen dadku in tiknikooda dhex marayso in ciidamadoodii ay joogaan magaalada gudaheeda waa xilla ciidamada ma joogaan wax ciidamada ma joogaan meel xoogaa u jirta meel u joogaan nimankan Somaliland waxaa tiri waxay noo fursad noo siinaysaa weerarkan lagu soo qaaday in aan laascaanood qabsano marka ma waxaad leedihiin Puntland baa laascaanood soo weeraraysaa Puntland waa la wareegi doontaa laascaanood waan gartay sababana waa ka faa'iideysan doontaa maanta arrintan weerarkan maanta la isku soo qaaday idinku hore ma ogeedeen in deegaanka uu ka socdo dhaqdhaqaaq siyaasadeed ama weerar la isku soo qaadayo gudoomiye waxaa jirta hore u qabsaday haddana weli duulaanka sii ah gudoomiye laga filayaa ku dambeeya gudoomiye waxaa jirta in idinkii Puntland Somaliland iyo Puntland heshiis ka dhaxeeyay xadkuna idin ahaa meesha la yiraahdo Tukaraq labadina ciidan idinkuna Tukaraq joogtaan iyaguna ay ka sokeeyay maxaa iska bedelay heshiiskaas Tukaraq ma ahayn wuxuu ahaa meesha la yiraahdo xoog iyo xadkiyo gudoomiye noo sheegtay in uusan meesha laga Tukaraq dagaal ka dhicin saasna ay ku qabsadeen ciidamada booliska idin joogeen Tukaraq waxaa ku booliska joogay dadna waxa weeye hareeraha ay ka soo mareen booliskuna lama hadlin waan gartay meeshii ciidanka fadhiyeen bay soo weerareen baan ku yiri waxa weeye xoog bay kala kulmeen iyaguna khasaare gaaray dadna dib ay meeshoodii ugu noqdeen ciidamada Puntland xagee u yahay fadhiisikooda iyagu hadda ciidamada Puntland hadda fadhiisikooda waa fadhiisinta Somaliland waan gartay marka maadaama hadda Tukaraq iyo aagii dul ciidamada Somaliland ku sugay idigu talabada qaadaysa maxay tahay labada qaadana oo ku sheegay waxa kale aan ku faa'iideysan lahayn aqaarada ugu qabsan waan gartay darada cadaanka ay soo qaadeen doonta magaalada ugu dhamaadiyay dhanka Somaliland gudoomiyaha gobolka Sool oo aan la hadlay waxa uu sheegay ka qabsadeen ciidamada Somaliland walow uu sheegay in aysan kala kulmin wax iska caabina Mukhtaar Cabdi Jaamac wararka warbaahinta SBC laascaanood